nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada badh buu ku yidhi weligiin waxa maamulina. qaarna markay soo islaameen maalmo kadibba maamul baa loo dhiibay. qaarka la yidhi weligiin waxa maamulina waa rag ka mida raggii ugu horreeyey islaamaha, masalan abi dar oo kale waa saxaabada waaweyn ka mid ah. nebi moxamed uu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam asdaqu lahja inuu yahay. haddana waxaa lagu yidhi laa ta'muranna cala اثnayn, laba weligaa madaxa u noqon buu nebigu ku yidhi. laba qof madaxa u noqonin, cidna ha liidh garaynin. cagsigeeda rag baa markay soo islaameen ban yaray joogeen baa loo dhiibay maamul oo saxaabo dhan dagaal geliyey. camar binu caas iyo khaalid ibnu waliid iyo rag ka mid a. macnaheedu maaha khaalid iyo camar inay ka alla ka cabsi badnaayeen ama ka cilmi badnaayeen abidar. waxaa la filayaa intaba inuu abidar kana cilmi badnaa markay cilmi noqoto. dadka lagu tirinaya inuu saxaabadii saabiqiintee hore u islaamayna uu ahaa. haddana nebigu wuxuu tilmaamay inaanu qaa'id noqonin, inaanu cid maamulin. taa macnaheedu waxa weeyaan wadaad baanahay oo cilmi sharciyaan leeyahay kuma dhaxal siinaysa inaad qaa'id noqoto. wadaad baanahay oo cilmi sharciyaan leeyahay oo sifaadkii qiyaadadana waan leeyahay ma kaa reebaysa inaad madax noqoto. innaga laba daraf oo kale fog bay dadku inta badan taagan yihin. kooxda mala wadaadada ay wuxun bay rajaynayaan inay iyagu ka mudan yihiin qolada tan aan weysadoodu badnayn. cagsigana qolyahan kale maamulada iyo waxaan soo waday waxay u haystaan wadaadku inaanu xaqba ulahayn inu wax maamulo. bal wadaadka siyaasadda doonaya ayaa laga bilaabaya kaanama aanu qiyaadada isagu xaq u lahayn. idan waxayn leenahay sifaadka qiyaadadu haddii lagaa helo ama wadaada haw ama ha ahaanine waxaa suurtagala inaad qaa'id noqon karto. inaad u dhalatay baa suurtagala sifaadka qiyaadada. waxaa kaloo suurtagala inaad ka mid tahay bulsho weynta tababarka u baahan ee haddii la tababaro qaa'idka noqon karta ama hormoodka noqon karta. 96-98% ka kale inaad ku jirto. haddaba waxay yidhaahdaan qaa'idku masalan john maxwell waa wadaad kristan ah, waa minister kiniisadeed, yani waa sheekh kaniisad hogaamiya masiixiya. ilaa PhD-giisa masiixinimadaas iyo wixii la halmaala theologigeedu ku qaatay. laakiin markii dambe leadershipkan iyo waxaan ragga wax ku qoro weeyaan oo bugagtiisa qaarkood waxay dhahdaan 1 milyan oo copy baa la iibsaday. ayaa wuxuu leeyahy weedhuu leeyahy leaderku is one who knows the way, goes the way and shows the way. hogaamiyuhu waa qofka garanaya buu yihi waddada hogaaminta qof garanaya kuna dhaqmaya. dadka badh baa jira intelligenta, caqli badan, wax badan garanaya, laakiin lazy ah, aan irbad dhuub gelin karin. walidalik ardada jaamacaadka masalan markaynu soo qabanno inaad higher degree ama percent sare ku baxdo 90 above cream student inaad tahay a plus inaad tahay macnaheedu maaha inaad hogaamiye noqonayso. macnaheedu waxa weeyaan inaad wax badan fahmayso. walidalik ba waxay yidhaahdaan CEO-yada dunida marka la eego in badan oo ka midi waa ardadii C ku baxday iyo D iyo meelaha. C iyo D soo meel damba ma